Dalka India ayaa sanadihii ugu dambeeyay la daalaa dhacaya dhibaatada kufsiga. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee la shaaciyay sanadii tagtay ee 2019 ayaa lagu sheegay in nus saac walba dalka India uu ka dhaco fal kufsi ah. Dhacdadii ugu xumeed ayaa dhacday sanadii 2012 kadib markii gabar 23 jir ah ay 6 nin u geysteen kufsi wadareed ugu dambeynna ay dileen. Dumarka dalka India ayaa inta badan qabta dibadbaxyo abaabulan oo ay dowladda kaga dalbanayaan inay hoos u eegto dhibaatada haysata, balse waxay u muuqataa in dowladda India aysan weli u helin xal waara arrintan. Balse qof dumar ah oo horey ula kulantay arrintan kufsiga ah ayaa soo saartay hub u gaara dumarka oo u suuragelinaya inay naftooda ka difaacaan waraabayaasha surimada u taagan. Qalabka ay dumarku isticmaalaan sida boorsooyinka gacanta, roosetooyinka ama labistiga iyo kabaha ciribta dheer ayaa waxaa lagu dhex qariyay bastoolad hash ah oo aan rideen wax rasaas ah balse sameynaysa cod sida hubka oo kale ah. Qalabkan ayaa sidoo kale waxaa ku rakiban badhan yar oo la taabanayo durbadiina la xiriiraya saldhigga boolis ee ugu dhow isagoo isticmaalaya habka isgaarsiinta Bluetooth-ka. Arrintan ayaa la rajeynayaa inay wax ka beddesho xaaladda adag ee haysata dumarka dalka Hindiya iyadoo suuqa lagu soo geliyay qiimo aad u yar.